qodobkan ayaa dood weyn ka dhaliyay baarlamaanka dhexdiisa waxaana wax la iska weydiinayaa suurtagalnimada in haweenka loo gooyo kuraas iyaga u gaar ah iyadoo ay taasi jirtana ayaa haddana waxaa jira xildhibaano dumar ah oo gabi ahaanba ka soo horjeesaday in dumarka si khaas ah lagu gooni yeelo kuraas iyaga u gaar ah xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Saynab Maxamed Caamir oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu warantay waxaana weydiiyay waxa ay diidan tahay ama ku diidan tahay hindisa sharciyeedkaasi waxaa ka biyadiida hooyo aniga waxaan hay xildhibaanad siyaasiyad ah in la yiraahdo koosada gabdhaha hana loo xiro kaasa ka biyadiida sababta waxa waaye marka hooyo shirarka la tagayo haweenka lama qaymeeyo sirka kama qayb galaan haddii ay saxaafadaha la wareegsanayo haweenka doodaha kuma daraan marka aniga waxaan ka dhex arkay wax quursi la yiraahdo inuu jiro maanta haddaan farta ku soo geli lahaa oo maxay ahayd codkayga aan isdifaaci lahaa oo siyaasada runa noqon lahaa wax kasta waa ii fuudaan lahaayeen maxaa noqonayba maxay ahayd iska siiya marka siiya ma noqonayso maanta aniga ma rabo gabadhii fariida aheyd ee tartanaysa ha tartanto ragga waxaa ka qaadata laakiin goorta la xiraya aniga sharcigaas ee shaqo ku leeyahay yaa waaye dadka aad leedahay waxay leeyihiin qoondada ha noola xiro soo dumarka aad adiga ka mid tahay ma ahan waa gabdhaha aniga ka mid ah waxay yiraahdeen koosada ha la xiro ay malaha aniga ku soo noqonayo laakiin waxay leeyihiin waa in haweenka loo xiraa hadda baarlamaanka way joogaan gabdho 82 baan dhaafnay labada aqal marka la isku dar maanta haddii gabadha soo sharaxday timaadee tiraahdo war xubin baan doonayaa gabar u ogaanaysa midisa beeshada ku xiran tahay haddaba sida beesha ku xirnaadeen odayaashoodii iyo xisbiyada hadda imaanaya waxaa ka doontaan laakiin aniga meel ha liigu xiro oo haddaan gabar ahay gabarkaan hay badiso aniga aan jooga saas suuragal maaha gabdhaha soomaalida waxaan leeyahay tajribada joogta gudaha joogtada siyaasada waa furan tahay gabdhaha kasoo qayb galaan waxaan heli karnaa 50% aan heli karnaa marka ina isciidnamaha naloo xiro aniga sharcigaas hadda sharci mabaho dastuurkaba kuma yaalo waxaad leedahay waraysyana lama siiyo madaxda shirarkeeda noogolama yeero quursi ayaa jira haddana waxaad leedahay shakhsiyan ma doonayo in meel noola xiro waxaan rabnaa inaan tartanno waxaad leedahay haddana gabdhihii nooma codaynaya marka yaad eedaysaan aniga ka eedayn aniga qof kale ma eeday aniga haddaan kasoo dhex bixi lahayn baarlamaanka nidaamiyaasha kuma jirno baarlamaanka sare kuma jirno xoghayada kuma jirno marka waxaa naga reebay waa wax laciifnimo ku jirta haweenkii oo naga qaylinaynin oo isdifaacaynin oo cadkooda doonanaynin marka waxa waaye baarlamaanka waxaa loo baahaya haweenka soomaaliyeed kuwa hadda joogana waxaa ilaahay ka rajeynaya inay isbedelaan kuwa imaan doonana oo ilaahay cas uga dhiganay inay noqdaan gabdha kabaabulo oo siyaasiyiin oo doodi karo dibadaha hadda waad arkay adduunka maa la xiraa maraykanka maa loo xiraa gabdha koota lama xino siyaasadii soo galaa waxay ahayd idriis waad arkay wadamada afrikaanka cunaha la qabanayo saas sameeya la yidhaahda mahe waddan kale oo koota haween loo xiro ma jirto marka haweenka soomaaliya waxaan leeyahay 30% iyo 100% intaa la ordaysan daaye isdaafaco siyaasada soo galo qaras haddaa tii hasraqay fadhiisa tii kartali aqoon la kartida aqoontida ku soo baxday hala soo baxaan leeyahay aniga haweenka waxaad leedahay dumarku ha soo baxaan siyaasadda ha ka qayb galaan laakiin dumar badan waxay rumaysan yihiin in aana la dooranaynin rag haddii ay tahay iyo beelihii ay ka yimaadeenba ama deegaanada ay ka soo jeedaan in aan cod la siinaynin marka ay dan ugu jirto in qayb iyaga ay leeyihiin loo xiro ma saa qalad waaye gabdhaha saa qalad ay u fahmeen gabdho waxaa jira lagu dhaartaa deertaanba oo lasoo doorto oo beeshooda ama beel hadda weli beelana 4.5 la yahay hal la gaaro siyaasada madax banaan marka la gaaro 4.5 gabdhaha qaarkood 180 waa ka socon ragga waxay qabteen mar haba inaan magacaabo gabdhaha inaan magacaabo gabdho badan oo barnaamij ku jira oo 180 goboladoodii wax u qabto goboladoodii socdaa jirta laakiin taa markay biri ay tiraahdo waa isay faraxaya waa la dooranaya si aan wax qabanina qof ma dooranayn beenta ku taagna gabadha wax qaban wax ma dooranayn xildhibaan waxaad tiri 20 sano kursigaas ayaan ku fadhiyay 20kaasi sano ma doorasho ayaad ku soo galaysay mise dumar ahaan ayuu kugu xirnaa ma iga aniga ani markii hore waxaan haysan 20 gabdhood Soomaaliyeed arta laga soo doortay oo haweenahan madaxweynaha Djibouti uu gabdhaha siiyay ayaan kamid ahaa 20 gabdhood oo gabdhaha Soomaaliyeed siiyay qaar baa weli igula jira meeshii markii hore dumar ahaan baa ku soo galay markii dambe tartan la galay aniga markii u dambeysay intii weli 4.5 lagu jira tartan markaa dambe waa tartan baa ku soo galay hal mar baa tartan soo galay saddexda qayb oo kale tartan ma soo galay waa la qoray haddana hooyo sidii ku socotaa adiga 3 jeer haddii lagu soo qoray maxaad ku diidaysaa dumarkan kale in iyagana la soo qoro hadda ma diid aniga dhageysta ku diiday waxa la xiraya diidanaha aniga waxa warbaasha waa isbedelaysaa siyaasada isbedela ku dhacayo basaasan u xirnaanayna u taaganahay ay haddii la xiro oda kasta wuxuu keenayaa maxay gabadhaan waxba garanayna aqoon lahayn keeni kara si aqoonta lahayd wax qaban lahayn banaanka taagantahay taasi waxay ahayd Saynab Maxamed Caamir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya